nalooma dirin inaanu dalal cayiman oo gaar ah ka keena aqoonsi qaarna aan ka tagno inaan dunida aqoonsi ka doono ayaa naloo diray dal kasta oo Soomaaliland aqoonsada midab kastuu leeyahay iyo diin kastuu leeyahay iyo dhaqan kastuu leeyahay waanu aqbalaynaa aqoonsiga ay nasiyaan waxa aynu rumaynay rajo aan sugaynay 34 sano rajo aan u samreynay 34 sano rajo aan riyo ku dhisnayn ee aan ka shaqaynaynay 34 sano waxaan rabaa inaan u mahadnaqo shacbiga reer Soomaaliland dabaaldegi balaadna ee ay dhammaan gobolada reer Soomaaliland ka sameeyeen habeenkii xalay ahaa iyo farxadii iyo reynreyntii iyo wanaagii ay ku qaabileen aqoonsiga ay dawladda Israa'iil siisay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabaa inaan u mahadnaqo mucaarad iyo muxaafidba si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa dadka mucaaradka ahaa ee halka adka ee mayalka adka ee maalinta ay Soomaaliland tahay gartay inay kala saaraan qarannimada iyo maxaan ku dhahdaay mucaaradnimada waxa dhexdeena jira waxaan u mahadnaqayaa media oo run ahaantii qaatay kaalin qarannimo qaatay kaalin muwaadinimo qaatay kaalin Soomaalilandnimo oo maxaan ku dhahdaay codkii shacbigooda iyo dawladooda iyo mucaaradkooda iyo dadkooda iyaga oo maxaan ku dhahdaay aan u meeldayn gaarsiiyay dunida iyo meel kastaba waxaan idin leeyahay mahadnaqa ugu weyn idinka ayaa leh hadaa warbaahinta Soomaaliland tihiin waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Israa'iil oo rumaysay halganka Soomaaliland ay ku soo jirtay muddada dheer Israa'iil waxaan wadaagaynaa dana siyaasadeed iyo qaar istiraatiijiyadeed iyo qaar dhaqaale waxyaabaha ay dawladuhu wadaagaana kuwaas weey dawladuhu iyagoo kala midaba iyagoo kala dhaqana iyagoo kala diina ayaa haddana waxa ay wadaagaan dana siyaasiya waxa ay wadaagaan dana dhaqaale waxa ay wadaagaan dana istiraatiijiya Soomaaliland waa dal dunida waxay ku soo jiidato haday dhaqaalatay iyo haday istiraatiijiyad tahay iyo haday dhaqan tahayba haysa oo leh aqoonsiga Israa'iil ay Soomaaliland aqoonsatay ma aha mid curad ah oo maanta uun dhacay laakiin 1960kii Soomaaliland markii ay xornimadeeda ka qaadatay dawladdii Ingiriiska Israa'iil waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee Soomaaliland u aqoonsada inay tahay dal madax bannaan waxa uu ahaa aqoonsigaasi aqoonsi ku dhisan sharciyad caalami ah maanta kana waxa uu yahay mid ku dhisan sharciyad caalami ah Israa'iil sidoo kale waxa ay aqoonsatay markii inagu oo xor ah oo aanay cidinayna qasbin cidinayna jujuubin aynu go'aansanay inaynu jamhuuriyaddii Soomaaliya ku biirno si aynu u xambaarno himilo iyo aragti Soomaalinimo oo shantii Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan laakiin guul daraysatay maalintii inagu go'aanka aan qaadanay ee aan Soomaali ku biirnay haddana dawladihii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed aqoonsada waxa ay ka mid ahayd dawladda Israa'iil taas waxay ku muujinaysaa Israa'iil inay xidhiidh dheer iyo dana siyaasi ah gobolkan aan deganahay ay ka lahayd xaqiiqooyinkaasi waxayna tusayaan in Israa'iil weligeedba diyaar u ahayd in ay Soomaalida iyo gobolkaba la yeelato xidhiidh ilbaxnimo iyo dan wadaag ku dhisan dawladda Soomaaliland waxa ka go'an inay qadeedeeda aanay cidnaba uga gaban maanta kuwa inaga aqoonsigeena ka soo horjeeda ee leh dan Soomaali ayaan wadnaa ama dawladaha ahaadaan shisheeye ama Soomaali kalaba ha ahaadaan waxa ay misgareynayaan xaqiiqada ah in ay ka soo horjeedaan oo ay duudsiyayaan himilada iyo doonista 6 milyan oo Soomaali ah in ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin sharciyada iyo taariikhda iyo jiritaanka ummadan aynu xalay arkaynay faraxtideedii korjoogeedii iyo sidii ay reynreynta ugu soo dhaweeyeen aqoonsiga maanta ay heleen kuwa sida ayna leh waa kuwa dawlad aan jirin
meel ay xukuntaa jirin xamar qayb ka mid joogta u ogolaaday inay sharciyad ku haysato waa kuwa u ogolaaday in meydka ka imanaya maxaan ku dhahdaa reer Somaliland ee ku soo dhinta wadan shisheeye keenistiisa waa kuwa u ogolaaday inay fiisa ku xiraan kaasi maanta aniga dantayda ima sheegi karo dadkayga dantiisana uma sheegi karo waxaan ogeyn taariikhdeena waxaynu u soo marnay waxaynu u taaganahay waxaan rabno iyo waxa aan u soconno dawladda Soomaaliya waxaan rabnaa inaan u sheegno annagu waxa aan diyaar u nahay inaga oo laba dal oo walaalo ah inaan iskaashano inaga oo laba dal oo isgarabsanaya inaan ka wada shaqeyno danaha aan gobolka ka leenahay iyo kuwa aan dunida ka leenahayba xasan sheekh iyo inta ag joogtaa waa inay ogaato ummad la caburin karo oo la hor istaagi karo oo himiladeeda la duudsii karo inaanay ahayn ummadani waxa ay la dagaalantay dawladdii Siyaad Barre oo ciidanka bariga Afrika ugu xoog badan haysata xasan taariikhdaas aan ogeyn dadkan aan aqoon halkan sidii ku yimaadeen baanu ka warhaynin xogogaalnimo la'aan ayaa haysa waxaan doonayaa inaan sheegno dadkani dad seexda maaha dad jiifsada maaha dad dantooda maxaan ku dhahdaayay habeen ka nasta ilaa inta ay ka gaarayaan maaha wuxuu baahan yahay inuu barto dadkan taariikhdooda wuxuu baahan yahay inuu barto dadkan himiladooda wuxuu baahan yahay inuu ogaado dadkani waxa ay rabaan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo dadka Soomaaliyeed annagu waxaan rabnaa halkan inay noqoto hoy dadka Soomaalidu ku nabadgeli karaan hoy dadka Soomaalidu ay ka shaqeysan karaan hoy ay dadka Soomaalidu ku soo helan karaan hoy aan lagu cunsuriyadeynin hoy aan nacbaashiya laga tusin hoy aan ahayn mid maxaan ku dhahdaayay lagu duudsiyo oo lagu fogeynayo iyagana waxa aan ka rabnaa wanaaga noo soo kordha iyo waxa aanu helo iyo waxa aanu qabsanayno inay bogaadiyaan inaanay ka xanaaqin inaanay xasadin inaanay fogeynin waxaan ognahay xaqiiqada taale ah maanta dad Soomaaliyeed oo dawladda oo run ah oo meel wada jooga inaysan jirin inaanay intii halka wada joogtay meel isugu keenin inay ku guul dareysteen inay dawlad macna leh oo dimuqraadi ah oo la isdoorto ay dhistaan inay nabad keenaan Muqdisho in ay xasiliyaan ninka Muqdisho xasilin kari waayay himilada inanka ceerigaabo sida ma qaadi karo himilada inanka boorma sida ma qaadi karo himilada inanka jooga maxaan ku dhahdaayay gabiil iyo saylac ma qaadi karo himilada inanka laascaanood iyo burco iyo oodweyne jooga ma qaadi karo naftiisu beenu sheegaya ummaddu beenu sheegaya dadku beenu sheegaya waxaan leenahay Soomaali weyn way dhimatay soona noqon mayso waxa u baahan tihiin inaad ka sabirtaan waxa u baahan tihiin inaad si kale u fakartaan waxa u baahan tihiin inaad tiraahdaan inagoo Soomaali ah maxaynu wada qabsan karnaa afxumo iyo hadal xumo iyo cadaadis Somaliland ku iman mayso kumana soo socoto 34 sanadood oo aqoonsi la'aan ah Somaliland halka may joogteen haddii ay cadaadis ku imanayso oo wax kastaba la isku dayay waxaan rabnaa in caqligu shaqeeyo caadifada la iska daayo wanaaga iyo jiritaanka iyo nabadda gobolkan aan ku wada noolahay laga shaqeeyo waxa jira wadamo badan oo dunida kamid ah oo iyaguna aqoonsiga Somaliland dhibaato warka waxaan rabnaa dunida oo dhan inaan u sheegno Somaliland aqoonsiga la aqoonsaday waxa uu soo kordhinayaa oo wax weyn ku tarayaa nabadda gobolka waxa uu wax weyn ku tarayaa ilaalinta iyo adkeynta amniga badda cas waxa uu wax weyn ku tarayaa oo uu soo kordhinayaa wada noolaanshaha iyo dhaqaalaha isdhexgalka gobolkan aan ku noolahay wadamada maanta doonaya inay inaga inoo lagjar gareeyaan Israa'iil baa aqoonsatay waa wadamo muddo dheer xidhiidh la lahaa wadanka Israa'iil
turkigu waa wadankii koowaad ee dunida aqoonsada jiritaanka Israa'iil 1948 1848 ilaa maanta marxalad kasta oo dhacda dagaal kasta oo dhacda wax kasta oo bariga dhexe ka dhaca turkigu marnaba xiriirka uu Israa'iil la leeyahay iska daa inuu gooyo hoos uma dhigin maanta markaa turki diini nooma sheegi karo taariikhna inooma sheegi karo dhaqan kalena inooma sheegi karo danteennana inooma sheegi karo danteenna inagaa naqaana inagaa ka shaqaynana inagaa u taagan inagaa matala waxa kaloo iyaduna xaqiiqo ah wadamo badan oo carbeed in ay la leeyihiin xiriir toos ah iyo mid dadbanba dawladda Israa'iil annaga haddaan nahay dawladda Somaliland ama xukuumadda Somaliland nalooma dirin inaanu dalal cayiman oo gaar ah ka keena aqoonsi qaarna aan ka tagno inaan dunida aqoonsi ka doono ayaa naloo diray dal kasta oo Somaliland aqoonsada midab kastuu leeyahay iyo diin kastuu leeyahay iyo dhaqan kastuu leeyahay waanu aqbalaynaa aqoonsiga ay nasiyaan sidaas la mid ah annaguna waa ixtiraameynaa danahooda iyo xiriirka naga dhaxaynaya xiriirada aan leenahay macnaheedu maaha inaanu cid ku dhibaataynano macnaheedu maaha inaanu cid ku fogeynino macnaheedu maaha inaanu cid xumaan ugu qaadano wararka beenta ah ay Soomaalida Muqdisho joogtaa doonayaan inay faafiyaan ayaan iyadana rabaa shacbiga reer Somaliland iyo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah inaanu sheego ma jirto wax annaga iyo Israa'iil aanu ka wada hadalnay oo la xiriira qadiyadda Palestine waa ku celinayaa ma jirto wax annaga iyo Israa'iil aan ka wada hadalnay amaba aanu ka sheekaysanay oo ku saabsan qadiyadda Palestine marka waxaan rabaa inaan Soomaalida u sheego inay taa yaqiinsadaan taa xaqiiqsadaan iyaga qudhooduna waa la soconaa inay juhdi badan iyo dadaal badanba ku bixiyeen inay Israa'iil xiriir la yeeshaan kan hadda Somaliland iyo Israa'iil u abuurmay oo kala aad iyo aad ba u mahadsantihiin mar labaad waan idin bogaadinayaa waxaan idin ka codsanayaa oo aan idin soo jeedinayaa maalmaha aynu ku jiro farxadda ah inaydu shacabkiina la dabaal degtaan waxaan idin soo jeedinayaa fariinta iyo dareenka shacbigiina inay xambaartaan waxaan idin soo jeedinayaa inaydu ka shaqeysaan sidii fariinteenu iyo hadalkeenu u meel dheer oo fog u gaadhi lahaa shacbiga reer Somaliland waxaan soo jeedinayaa inay isku duubnaadaan mid ahaadaan shaqadii ay hayeen laban dantooda sidii shalay u ilaashadaan cadawgooda ka cusub iyo kii shalayba si isku mid ah ay uga feejignaadaan inaan lagu soo dhexdhoomanin inaan qadiyadda Somaliland cidda ka soo horjeedsata aanu shacbigu u dulqaadanin oo aanu aqbalin xukuumaduna sidaas la mid ah qofka ka soo horjeesta qadiyadda Somaliland sidii shalayba loo diidanaa ayaa maantana loo diidayaa lamana aqbali doono cid qadiyadda Somaliland ka soo horjeeda inay halkan joogto oo ay maxaan ku dhahdaa waxay doonta ka samayso oo waxa ay doonta ay ka tiraahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhowr su'aalood kuma soo galan doona way Good.